waxyaabaha buriya afar qodob baa xajka buriya afarta mid kamid ah haduu qofku la yimaado xajkiisu waa buraya qodobka koowaad adamul ihram inaanu qofku xidhanba maba soo xidhan way iska dhaxbooday meesha hadda ninkii salaada safka soo gala oo aan xidhan laakiin dadku waxay sameeyaan sameeyo oo faatixada iyo akhriyo oo rukuuca oo sujuuda salaad ma u jirtaa maxay jirtaa maba aadan xidhane inaad xidhataa ka horeysa Soomaaliya horta ya nin baa leeyahay hebelow mariyootay inaan seexdaa ka horeyso horta marka hore markaan seexday riyadu imanaysaa marka waa koow horta qofka hadaanu xidhanin de xaj uma jiro labo adamul wuquf bi arafa inaanu arafa taginba le rasuulku wuxuu leeyahay al-hajj arafa xajkuba waa arafu nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii maalintii ay ku suuroobi weydo inaad tagto carafa istaagtid oo soo habsaantid qoraxduna ka dhacdo habeenkii tobnaad ee ciidkana la gaaro shariicadu waxay ku ogoshahay habeenka inaad guurayso oo habeennimada carafa istaagto haddaad habeennimada carafa istaagto saacadna Allah ka dhige waa ku jira marka xajki laakiin haddaad maalintii sagaalaadna tagi weydo habeenkiina carafa istaagi weydo xajku ma jiro xajka ay isbedelaya automatic ahaan umru isu bedelaya marka waa inaad marka carafa istaaginna waxyaaba xajka buriyay kamid saddex aljimaa adoo xajkii ku xiran yahay hadii aad galma samayso oo reerkaaga kula socda intaadan wali xalaaloobin aad u galmooto waxyaaba xajka buriya waxa ugu weyn weeyaan koo waxa laga rabaa toobadkeen laba waxa laga rabaa lagugu ganaaxaya neef geela inaad gowracdo oo fidya baa lagugu yeelanaya saddex xajkaagi waa buray afar sanadka dambe soo qalaynaysa shan meeshu hadda wax marmarayaan aad wadwadidna waa dhameystiraysa laakiin umrad ku bedelaysa arintaadi qodobka afraad ee buriya xajka waa arridda qofku inuu diintiba ka baxay diintii buu caayay ilaahay buu caayay rasuulku caayay معان كورادا قرآن كيبو عايي وما جيدي حجنا ووحدنا خلاص حجكي سوا بوري لأنه وابا قالوا بيدي قفل مركا دو قالوا ردان لي ما هذا دينتي كان نقضوا حجكي سوا بوري